الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت لو مرتدى ياهي يا انت مرتدى ابا ادي اد بان ugu mahadnaqaya ka soo qayb galka xafladan waxaan aad ugu mahadnaqaya dadweynaha degan jiidaal halka ku qoran ee awooda iyo karaamada iyo sharafta iyo garashada iyo xuduudda leh ee maanta go'aansaday inay xoojiyaan xisbiga kulmiye iyo murashaxiisa aad baan idinka mahadnaqaynaa waana abaana noo gasheen waana idin ognahay soo dhawaynta kadib halkan wixii laga kaftamay iyo wixii la yiri ba kaftan qurux badan oo turxaan laba ahaa waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka abtigii u duceeyo qarnaas looma dhigo marka ducada horta aan isla ogaano ducada soo tira hadii la yiraahdo ta kale waxa la yiraahdaa haddii nin arrin loo dhiibo inkastaba la ekaado inkastaba kubadda ciyaaraya haato faras la fuulaya haato fagaara laga hadlaya haato qaran loo talinaya haato nin kasta oo xil loo dhiibo xilka marka uu maamulo laba hadal baa soo baxa ninkaasi hadduu si fiican hawsha uga soo baxo oo la majeerto oo la amaano waxa la isweydiiyaa horta yaa dhalay marka waxaanu ka heshiinaynaa oo anigu aan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan caqliga talada cadaaladda hogaaminta suuban qaladkoo la iska qabto si hadhowto loo yidhaahdo war nin kale yaa dhalay labada marka ka gudbo shirkan maanta aynu isugu nimid ummadda intaan laga kulmiye taageertay waxaan doonayaa inaynu isla ogaano dhowr qodob haddii aynu isu nimid oo aynu kulmiye nagu taageerteen waxa wanaagsan inaynu isla garanno waxyaalaha u socono iyo waxyaalaha aynu doonayno kollay sida la isku raacay idinku ma tihidin dad loo sheegayo hogaaminta iyo sida qodobada waxa lagu hogaaminayo dadku wuxuu baahan yahay waayo halkan in badan baa waa kurti waa tala qabeenkii waa madaxdii qaranka leeyahay marka malaha waxay noqonaysaa gardar haddii la tilmaamo lana saaseen wuxuu hogaaminaynaa laakiin waxaan doonaynaa kulmiye ahaan maxaynu heshiis ku nahay kow horta waa cabsida ilaahay qofku haddaanu ilaahay ka cabsan dee xayawaanku waxaa ma dhaabo dad ilaahay ka cabsanayn baa horta meel waxood dhigi karaa laba waa qarannimada somaliland inay somaliland noqoto qaran caalamka ka mida oo xorriyaddeedana oona cid gortamin inaynu geed dheer iyo geed gaanbo korana waa laba waa saddex dhexdeenna inaynu is ixtiraamno oo sidii dad gobo wada dhaqanadee ilaa iminka tiifiyada iyo baalaan telefoonada gobonimadu way ka baxeen oo hadduu ninku wax maagayo oo uu cid dhaliilayana si gobonimo iyo sharaf leh lafta gur xaragana ka tegin hadduu tala bixinayana si gobonimo u bixiyo taasoo ah aadaabta adduunka oo dhan ku dhaqmo gaar iyo islaamba in hadalka marka la wada doodayo wax la isugu sheego si miyir qabta oo hufan oo aan jareex lahayn diintuna wayna faraysaado qofka madaxda ah ama qofka kale wuxuu sheegaysaba ilmaha dhashay ha ahaadee marna waad u nasteexay kartaa oo markaad nasteexa wax ugu sheegayso hadal suuban wax ugu sheegaysa qaladkiisu fahmaya marna waad ceebaynaysaa wada fadeexadaynaysaa oo inankii yaraa haddaad hawl dirto sooba qaban waayo oo intaad koob u dirto koob ka jabo haddaad tiraa bakti yahow waxaa ka xuna nacaskii waxba garan maysee inanka cudad buu qaadaya markuu weynada xitaa laakiin haddaad tiraahdo waxa maa uu kaa dhacay maalinta baa xajin doontaa saasaa loo qaadaa waa taa nasteexo labada qodob baa yaalla ninka madaxda ah ama qofka xilka hayana labadaba waad samayn kartaa nasteexana waad ka dhigi kartaa fadeexana waa ka dhigi kartaa marka waxaanu isku raacaynaa haddaynu cid wax ka cabanayno si nasteexa wax ugu sheegno haddii ay wanaagsan tahayna aynu si nasteexa wax ugu sheegno fayaxad ka ilaaliyo intaa waxay noo raaca maxaynu codka ku falaynaa maxaa codka ninkan loogu dhiibayaa maxaa la iska rabaa waxaanu iska rabnaa kolka hore
ereyga weligeed ba la raadinaya waxa weeye qod dawladda la dhisaya iyo ninka madaxda waa bini aadmi oo uu qaldami karaa bini aadmigu sax ma wada noqon karo laakiin waxaan